السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو كرنتي وعنا ونكسن كسودو كرنتي أكاديمي. إن شاء الله ما توحي مكشك سندنا هدي اللي يرهدو 10 يورو كسابسن سمين تشيكلا أما سمين تبربحنا. marka mawduuc aragtinaad sheeko ka sameeysid oo aad wax ka qortid ka wariye ahaan ama idaacad u shaqee ama wargeys u shaqee ama TV u shaqee ama ba freelancer noqo doonaya inuu arin wax ka sameeyo waxa ugu horeeya ee furaha u ah waxa weeyaan marka koobaad in aad dooratid mawduuca sheekada inaad mawduuc dooratid oo aad xulatid mawduuca aad ka hadashid doorashada mawduuca waxa ku jira oo qayb ka ah inaad ogaatid waa maxay angalka aan ka hadlaysid sheekadan maxaa rabtaa inaad ka hadasho tusaale ahaan oo kale waxaad tiri waxaan ka hadlayaa mawduuc ku saabsan waxbarashada okay then waxbarashada maxaad ka sheegaysaa mawduuc guud weeyaan waa maxay angalka aad ka warantid waa maxay iyo xiise ma leeyahay angalkaas xiisaha uu leeyahay ma yahay wax cusub oo aan hore looga hadlin ma yahay intaas mawduucaagu inuu noqdo mid xiise leh oo aan hore looga sheekayn dadkuna ay xog fiican ka helayaan oo ku cusub inta marka aad damiisado mawduucaaga qortid fahamtid si fiican u fahamtid oo waliba si fiican u buuxdid talaabada ku xigta waxa weeyaan inaad garatid iyadana xogta ku xayndaaban ama ku xiran sheekadeeda waa maxay maxaa ka jira problem ka jira waa maxay dan problemkaas waxa qayb ka ah iyadana inaad fahamtid waa maxay mushkiladda jirta maxaan ogahay maxaan ogeyn yahay xogtaas yan ugu hagaagi karaa mawduuca xogta ku saabsan oo halkan waxa sidoo kale hoos imaanaya qodob ah sourceska ilaha dadka aan wareysanaya waa ay sheekada haya inta markaad dhamaysid qodobka kale ku xiga waxa weeyaan shaqadii qabo oo wareysiga bilow samee haddaba halka markaan marayno sheekadu kama bilaabato wareysi qaadid kama bilaabato wareysi waxa la qaadaa wax qorshaysan waxa laga yaabaa mararka qaar inaad aragtid dad wariyaal oo doonaya inay sheeko sameeyaan ama program sameeyaan dabeedna waxay ballansanayaan dadkii sourceska ahaa iyagoo aan garanayn waxay kala hadlayaan wuxuu ku leeyahay waxa ay ballansan afar qof hebel iyo hebel iyo heblaayo dood baan rabaa inaan qabtee maxaad isleedahay way ka doodi karaan maxaad marka hore dadkan ku xulatay haddaad mawduuca garanayn marka kadib wareysiga qaad wareysiguna waa ka ugu fudud oo ah su'aalihii aad doonaysa weydii ogow dadka la wareystayaasha ah waa jalayaal waxay ka hadlayaan oo kaliya waxa mawduucaaga ku saabsan yahay haddii tusaale ahaan ay ka hadlaan adigoo oo weydiiyey sidee arrinta xal loogu heli karaa adigoo weydiiyey haddii uu ka hadlo wax kale oo problem kale kuma aha source marka ilaahi dadka aad wareysanaysay su'aalaha weydii oo wareysada markaad soo qaadatid iyo xogihii kale aad u baahnayd kadib kala xulo xogahaaga keebaa ku bilaabaa keebaa ku xigta keebaa lead keebaa ka dhigayaa maxaa sheekada dheeraad ku ah oo aan u baahnayn xogta aan u baahnayn waa tee xogteebaa dhinac kale ii jeedinaysa maxaanan xaqiijin u hayn xogtaa kala xulo saa u kala hormarinaysa codes gooso clipskii aad ka qaadan lahayd dadka la wareystay jarjaro meel ku safarayso kadibna qor scriptiga sheekadaada qoro scriptiga markaad qortid waa ku dhamaatay shaqadii scriptigaaga hubi xogta ma ku dhammaystiran tahay saaxiibka ama qof kale u akhri oo la wadaag kadibna haddii okay kuu tahay oo xogta kugu dhammaystiran tahay codadkaagii scriptiga isku dardar kadibna waxaa kuu soo baxaya sheeko fiican oo la yidhaahdo reportage ayaa kuu soo baxaya fiican oo dhammaystiran inta daqaad ugu talagashay ah daqiiqadahana xasuusnow mar walbo sheekadu ay gaabnaato way ka xiiso badan tahay marka ay dheer tahay ha ku gaabnaato hana ku yaraato waxaan ku gabagabeynayaa qofka wariyaha ah ee aan aqoonta fiican lahayn waa qofka isagoo aan waxba qorin ilaaba inuu wax duubo wax walba ha kuu qornaadaan scriptina ka akhri haddii kale waxa aad sheegaysid waa wax aad maskaxdaada ka keentay oo aadan hubin xaqiiqadooda iyo kala hormarintooda shaqadaas mar sheeko fiican baa kuu soo baxaysa waad mahadsan tahay waana kulan dambe